waxa weligii aan jeclayn baarlamaan soo arkay aan soo joogay oo haddana muuqdaa waxa weeye baarlamaan furan wala fiirsadaya baarlamaan furan oo booskiisi lagu bedelay dhowr qof oo loogu yeero guddiga joogtada ah guddiga joogtada ahi xeerosaadka loogu sameeyay waxa weeye marka baarlamaanku uu maqan yahay waa guddoomiyayaasha guddiyada baarlamaanka ilaa maqashaan guddiga joogtada oo waayahan dambe laga dhigay cabinet ministers inay yihiin xukuumaddii oo kale inay yihiinoo gole wasiiroo fulina ay tahay qofka hor joogaana uu yahay ra-iisul wasaare oo kale waa guddoomiyayaashooda waaye wax ka weyn oo ay yihiin male marka baarlamaanku xiran yahay haddii wax dhacaan buuna guddoomiyuhu la tashadaa intaas way shaqadoodu maaha shaqadoodu baarlamaankiioo furan oo dhooban dhowr maalmood ka hor shalay oo kala socday in gooni loola shiro qurunka aan sheegayay ka mid tahay baarlamaanka 8aad kusoo aragnay kii 9aad kusoo aragnay kii carte aanu maaqaan uu jiray in kale laakiin waa dhib Soomaaliyeed oo socota la joojin waayay oo qofka aad isleedahay dadka waa ugu caqli badan yahay ugu cilmi badan yahay baa marmar wuxuu isticmaalaa waxyaalaha aysan samaynin dadka aadka u caqli xun oo aadka u cilmiga xun ay ka xishoodaan waxaa kaloo yaaba oo aan rabaa oo odagaygaas iska ritaayir garay oo iska jiifa i keenay ay tahay gardarra Soomaaliya inaan ka markhaati furo oo Cabdallah igu horreeyana u sheegay waxaan rabaa shacbiga Soomaalida aan la hadlayaa baarlamaanku iyaga weeyaan dadkaan u danaynaynaa inaan laga burburin laakiin shacbiga Soomaalida la hadlayaa qof la dacweeyay dhaqan islaam iyo dhaqan gaalo weligeed yaa maqlay oo arkay qof la dacweeyay oo asaga dacwada qaaday meesha bahashaani ay maraysaa iyo caqli xumada ka socotaa meeshaas dacwada iga soo qorteen yaa iga soo qoray xeer buu leeyahay baarlamaanku annagii sheegno kuma celcelinayno wuxuu leeyahay bahalkii xeeroosaadna wuu leeyahay dastuurna wuu leeyahay caqlina wuu leeyahay qolooyinka suluxa la wado anigu weligeyba reero sulux ma ahayn baarlamaanku sharci baa u yaalla sharcigaasu kala baxaa hadday xukuumad tahay hadday xafiis madaxweyne tahay hadday tahay nimanka halkaas dhooban xarano dhooban oo dadka qaarkiis aniga ka xishooda inay idhaahdeen beel ay ka dhigeen nama gaarsiin karaan inay wax noo yeeriyaan nooguma imaan karaan buurtaan yartaan annagu aan samaysanay cid waxna siisa oo nugumana sheegan kartaa ma jirto baarlamaanka aan sheegaynaa maalintaan nimid isagoo jajaban sidii boor u leeyahay haddii cidi wax ku siiso oo ay wax kugu leedahay baarlamaankaas ay u samayn lahaayeen shacbiga Soomaaliyeed waray gurigaas aan joogi jiro kulaylka badnaa ku noqda annagu ayada xabadu ka dhacayso hortiisa lagu dhintay baan joognay waray ku noqda dastuurka waxaa aragteen horaan u aragnay laakiin waanu hadli kari weynay baarlamaanka ayaan la xidhin jawaari baarlamaanka uu xidhayaa kii hore wax ku qaata uu xidhayaa albaabaduu xidhayaa danta uu leeyahayna dantiisuu ka dhex arki waayey maanta dowladda jirta anigu ra-iisul wasaarena ma aqaano madaxweynena isma naqaano laakiin waxaan idiin sheegayaa wixii uu kuwii hore xasan sheekh uu samayn jiray uu ka waayey uu ka heli jiray uu kuwan ka waayey saan filaya anigu dastuurka 4 sanadood iyo badhbuu hoosta ugu jiray maantana dastuurkii buu doonaya inuu la soo wareego oo uu xanibo waa caqabad Soomaali hor taagan shacbiga Soomaaliyeed jawaari waa caqabad haddaan laga qaban jawaari dalka meel dheer baa laga raadin doonaa ninkaas aan u arkay mowjid Soomaaliyeed inay la aragtay laakiin Soomaaliyaan la qaldin hal ummadda Soomaaliyeed baan u sheegaya horta baarlamaankani gebigiisa wuxuu ku sameeyay mooshinka wax la yiraahdo soo jeedin waxbaa lagu saxayaa hadduu guddoomiyo qaldamo mooshin baa laga keenaya hadduu madaxweynuhu qaldamo mooshin baa laga keenaya hadduu ra-iisul wasaaruhu qaldamo xukuumaddu qaldamo mooshin baa laga keenaya mooshinka horta cuqdad ha ka qaadina ha la fahmo caqabadda
soomaali hortaagani waa jawaari ha iscasilo ha ka tago ummadda soomaaliya intaasaan u sheegay anugu halkay intaasaan kusoo gabagabeynay hay-adda la soo hadlaysa iyo inta la soo hadlaa way ogtay nin baa habeen niman mado farta taagay oo maxay gud cure marayso fartaag baa loo bixiyay aroortii ina naga joojiyaan doqmo waan nahay nacasiya waan nahay Soomaaliya laakiin weli ma dhiman Soomaaliya weli waa nooshahay dhuxul dambe soo wiye intaas umaan oran lahaa haddii aan dheereeyana maxay tahay laga raali noqdo haddii aan maxay aad u yara dhiibsaday oo maxay tahay raaliha laga noqdo taas umaan maxay tahay xildhibaan hore xasan kaynaan xalane kulley waa la arkay meediyu waa arkeen Soomaaliya waa aragtay meel walba ku jira internetyadu ku jira wixii maaragtay ku eedeeyeen baarlamaanka marka waxaan u soo jeedin lahaa inuu is-asilo nagana yeelo maanta codsiga ila siyaasiyiintii dalkan u soo dhabar adeegtay iyadoo Soomaaliya dawlad laga aqoon oo dadku kala yaabsay 720 sano ay ku soo jireen burbur muddo 24 sano ilaa Cabdullaahi Yuusuf waa looga dawladnimadu meesha marsi ilaa Sheekh Shariif aan soo wadi oo adeeg gaasan ku soo jiray marka ma ogolin marka inay maanta meel ilaa ku burburto isqabsi iyo markay hore maanta hore aan islahayn alla ilaa hore u socoto waa isleenahay hore ba u socoto dawladnimadu waa meel macaani hadda joogta gudoomiye jawaari ha ogolaado mooshinka anigu ma ismaaliye mooshinka la qaado laakiin waxaan isleenahay inta mooshin la qaado nin weyn oo aqoon-yahana tahay is-asil shaqada jooji baarlamaankii sharafta lahayd shala ku doortay hortiisa tag istiqaale dhiib hadhow bariya lagu dooranaya siyaasa waa rogmad badan tahay bariya markaad soo rogmata sidii lagu doortay si ka sharaf badan lagu dooranaya maanta kala wareeg waaye marka ha isku adkeyn si ummadda Soomaaliyeed ay istaad siyaasadeed ay u fusho ay u hesho iyo hor socod assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xildhibaan Sandheere waxaan ugu horeeya qodobka ugu horeeya ee aan u soo jeedinayna waxay tahay guddoonka baarlamaanka iyo golaha shacabka in khilaafkooda ay ku dhameeyaan dastuurka iyo xeeroosaadka baarlamaanka u degsan maadaama khilaafku uu ka dhashay mooshin sharci ah oo ay keeneen mudanayaal baarlamaanka ka tirsan xaqna ay u leeyihiin sharcina ay u leeyihiin in lagu dhameeyo sida xeeroosaadka baarlamaanka uu qabo oo guddoonka baarlamaanka kudhiisa uu ansixiyey una saxiixay maxaa yeelay haddii sharcigii dalka u yaalay aan lagu dhaqmin oo meelo kale la laaclaaco waxay noqonaysaa in khilaafku sii fogaado marka dambena uu sababo burbur ku yimaado hay-adda sharci dejinta ama kala qaybsanaan ku timaado hay-adda sharci dejinta saas daraaddeed annaga waxaan ugu baaqaynaa uguna nasteexaynaynaa in lagu dhameeyo sida uu qabo dastuurka iyo xeeroosaadka baarlamaanka u degsan waan isla ognahay waxyaabaha ka soo dhexdhacay baarlamaankii 8aad iyo kii 9aad waxaa noo muuqata in laga cararayo in xeeroosaadka lagu dhaqmayo dastuurka iyo xeeroosaadka in lagu dhaqmo maaha speakerka baarlamaanka annagu ma dhahayno sidii siyaabaha dadka qaar ma dhahayno laakiin waxaan usoo jeedinaynaa guddoonka baarlamaanku inuusan isku dayin meelo kale inuu marmaro in xeeroosaadka uu dhowro laguna dhaqmo xeeroosaadka